maantaana ay ka soo qayb galeen madaxweynaha dawladda ku meel gaarka ah Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed, Ra'iisul Wasaare Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, wasiirro iyo xildhibaano ka tirsan dawladda ku meel gaarka ah Soomaaliya ayaa lagu dhaariyay gudoomiyaha cusub ee maxkamadda sare dawladda Soomaaliya dhawaan la magacaabay. waxaana halka ku dhaariyay Abukaati Ciidid Cabdullaahi Ilkaxanaf oo ah gudoomiyaha maxkamadda sare dawladda Soomaaliya, wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka dawladda Soomaaliya. Bismillahirrahmanirrahim. waxaan ku dhaaranayaa magaca Allah in aan xilkayga u guto si daacad ah oo ay ku jirto danta dadka dalka iyo diinta dhowrana أحد كمل جارك iyo dhammaan shuruucda kale dalka Soomaaliya madaxweynaha dawladda ku meel gaarka ah Soomaaliya mudane Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa sheegay in mas'uuliyiinta dawladda xilligan ay ku guda jiraan dhismaha dawladda garsoorkuna uu yahay kan ugu sareeyo la doonayo in awoodda koowaad la siiyo. waxaan ku jirnaa dhismaha dawladda hay'adaha dawladda waa sida la socodsiin maayo كل جودة شغل كلا دون أي قطعة ولا كستنا وحده كرسة عندها هاي قصار وحكم دي هاي هي ده حكومة الإنسان دولة وحنا لو معلومات عن الصوت شرع سوار الصوت شرع جواب سلام لسه كرسي عن شرع جواب سنة وحول الموضوع حاجة أمان تاني عن سينو أهمية دولية وماذا عن كرسار أو سنحين كرسار نظيفة أقوال له خبر له عدالتي لقبل كسر الجيش ولو البقايا sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay ra'iisul wasaaraha dawladda ku meel gaarka ah Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo sheegay in Ciidid Cabdullaahi Ilkaxanaf uu yahay mid ka soo bixi kara xilkan loo magacaabay iyadoona sidoo kale uu halka ka hadlay gudoomiyaha cusub ee maxkamadda sare dawladda Soomaaliya oo sheegay in dhankiisa uu ku dadaali doono sidii xilkaas uga soo bixi lahaa. dhanka kale gudoomiyihii hore maxkamadda sare dawladda Soomaaliya dikareeto ka soo baxday xafiiska madaxweynaha xilka looga qaado shir jiraad ku qabtay gudaha magaalada Muqdisho maanta ayaa sheegay in ka qaadista xilkaas ay tahay mid aan sharciga waafaqsanayn isla markaana lagu xadgudbay qaanuunka dawladda u degsan. markaan arkay xeerka loo cuskaday dib uga noqoshada laguna sheegay inuu yahay golaha wakiilada Soomaaliya